Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta ku xidhan kanaalkeena barashada shaybaarka soo dhawaada meel kasta aad joogtaan casharkeena imtixaanaha urine analysis-ka insha Allah ayaan idiin soo gudbin doonaa qaybihiisa ugu dambeeyay maanta waxaynu qaadanaynaa bilirubin of urine. Bilirubin of urine maxaa tahay maxaa sababa maxaase lagu ogaadaa inta ugu badan qodobada ayaynu isweydiin doonaa ugu horreyn bilirubin maxaa tahay bilirubin waa midab huruuda ama yellowisha kaas oo ay ka timaada marka RBC-ga la burburiyo ama RBC-gu waqtigiisu markuu dhamaado ee uu gaboobo RBC-ga waxaan naqaanay life span-kiisu inuu 120 cisho yahay 120 cishaba mar baa la burburiyaa deetana dib loo habeeyo RBC cusub loo soo saaraa marka RBC-ga markii la burburinayo xaalad normal oo caadiyan ayaa loo burburiyaa markii RBC-ga la burburiyo waxaa loo qaybiyaa qaybo protein iyo iron iyo qaybo aan loo baahnayn marka wixii aan loo baahnayn beerka ayaa la geeyaa beerka wuxuu geeyaa isaguna uu ka saaraa bile ductiga ama xameetiga iyadoo xameetidana looga sii gudbiyo intestine-ka ama mindhicirada taasoo halkaa laga saaro ama saxarada la raaciyo sidaasoo ay tahay haddaba haddii urinta lagu arko bilirubin waxay sheegaysaa xaalad dheeraad ama xaalad caafimaad inay jirto taasoo ay sababi karaan dhowr waxyaalood marka halkaa waxaynu ka arkaynaa horta ugu horreyn inaan bilirubin loo baahnayn in urinta lagu arko ama aan lagu arki karin waxa kale oo jirta weliba qaybta conjugatorka la yidhahdo conjugatorka laguma arko badanka urinta waxaan isweydiinaynaa maxaa sababa waxyaabaha ugu badan ee sababa waxa kowka in liverka ay dhibaato ka jirto oo tusaale ahaan ama liverka isagii baa xanuunsanayaba ama oo liver failure baaba jiraba ama liver disease-ka sida hepatitis-yadii oo kalaaba jiraba ama cirrhosis-kii oo kale ayaa jira marka beerka dhexdiisa ayay wax ka jiraan qodobka labaad ee saameyn kara isna waxa weeye waa bile ductiga iyo xidhan xameetidii ama iyadoo xidhan ama dhagax ku jiro ama meeshii uu tumar ama fiixo kale ay xidhay iyana way saameyn kartaa oo halkii laga saarayay ayaan markaa dhacaynin in la saaro deedna saa urinta lagu soo raaciyo waxa kale oo iyana jirta oo keeni karta hemolytic anemia ama in dhiigga isagoo waqtigiisii gaadhin la burburiyo tusaalahaan waxaan nidhi RBC-ga 120 cisho mar baa la burburiyo haddii 2 bilood isagoo jiro oo kale 60 cisho la burburiyo oo deetana saa urinta lagu soo raaciyo iyaduna waxa weeye waa xaalad kale oo sababi kartaa in bilirubintii lagu arki karo kaadida haddaba qodobka saddexaad aan isweydiin doonaa waxa weeye maxaa lagu ogaadaa inagu haddii laabnahay marka laynoo soo diro maxaynu ku ogaanaa badanka dhowr shaybaadh oo lagu sameeyaa way jiraan laakiin saddexda qodob ee ugu weyn waxa weeye in dhibistiiga lagu ogaado dhibistiigeeni yaraa intaynu dhex gelino inaynu ku ogaano xaaladda ama dhibistiigaasi inuu kalarka ay isbedesho deetana saa lagu ogaado waxaa kaloo lagu ogaan karaa laab ahaan marka la joogo microscope-ka oo ama physical ahaan midabkiiba horta lagu arkayo gudihii marka la joogana oo lagu jiro maxay ahayd tolay microscopic halka markii la joogana waxaa huruud ay ka dhex muuqanaysaa dhammaan seliskii RBC-gii maxay ahayd toolay hyaline castiskii waxyaabihii oo dhan ayaa laga arki karaa qaybtii sedimentation-ka sidoo kale physical ahaana dee waaba loo arki karaayo urinta marka ay huruud noqoto qasab waa la ogaanayaa in maxay ahayd toolay bilirubin jirto ama cagaarshow oo kale labada mid ahaan inuu sameeyo sidoo kale huruudda marar qaar bay ka tagtahay ay dhaag noqon karta oo ay dhaag oo kale noqota waxyaabaha kale oo kale lagu ogaado waxaa ka mid ah sida in qofkii la saaro tusaale ahaan in ultrasound oo kale la saaro oo waa lagu ogaadaa oo beerkii oo kale la eego si loo ogaado in xameetidu xidhan tahay oo kale waxyaabahaas oo kale waxyaabaha kale ee lagu ogaado iyadana waxaa ka mid ah in loo diro sida LFT oo kale beerkii oo kale in la baaro shaybaadhadii beerka oo deetana xaggaa laga eego
in waxyaabihii enzymeski sida GPT iyo GOT waxyaabihii ay kacsan yihiin. Qodobka ugu dambeeya ah see loo daaweeyaa. Kolley haddii waxaa jira hadba xanuunku siduu yahay ayay ku xidhan tahay. Haddii uu bilirubinta ay keenaan tusaale ahaan in xameetida xidhan tahay oo kale ama dhagax ku jira ama fiix oo kale in dee surgery lagu sameeyo oo kale ayay u baahan tahay. Haddii hepatitis iyo waxyaabo noocaas oo kale ay keeneenna in maadaama aanu dawo lahayn in lala tacaalo oo qofkii nasiimo badan iyo waxyaabo badan oo fluids ah oo isticmaalo ayay u baahan tahay. Sidoo kale iyana waxaa jirta haddii wuxuu kale oo u baahanaya isagoo dawooyin ah haddii uu tusaale ahaan uu dee beerkii uu liver failure oo kale noqdaan iyadana waa hawl kale oo kolley dhakhtarrada iyaga u cilmi leh marka iyana xaalad kale ay noqonaysa. Marka guud ahaan bilirubin intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa. Bilirubin waxaynu sheegnay inay tahay midab hurdiya oo ay sababaan RBC-ga marka la burburiyo iyadoo aan si toos ah loo saarayn oo caqabado ama beerkiya ama bile ductiga ay jiraan saa awgeed urinta la soo raacinayo. Waxaa kale aynu sheegnay in bile ductiga waxaan jeedaa qaybta conjugated oo quraata lagu arki karo urinta ee unconjugated aan urinta lagu arki karin. Marka insha Allah casharkii hal cashar oo nitrate ayaa inoo haray oo qaybtii chemicalka inoogu haray. Qaybtana way nagu dheeraatay laakiin casharka ayaa fara badnaa oo ilaa 10 qaybood oo chemical examination ayaa jiray. Marka insha Allah si direct ayaynu u wadan doonaa insha Allah oo qaybtii kale waxaynu u gudbi doonaa microscope-ka. Insha Allah casharka intii xiga ku kulmi doono waxaan idin leenahay subscribe, like, share lama mogaanin insha Allah. Dhammaantiin khayr badan baan idin rajeynayaa meel kasta aad joogtaan dhammaan asxaabtayda. Waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.